ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxay howlgallo ka wadaan qaybo kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose. Howlgalladan oo lagu xaqiijinayo dhanka ammaanka ayaa waxay ciidamadu ka wadaan deegaano hoostaga degmada Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose. Ciidamada ayaa howlgalladooda waxa ay ku xaqiijinayaan dhanka ammaanka, waxaana howlgalladaasi lagu baadigoobayaa firxadka maleeshiyaadka Argagixisada ee Al-Shabaab. Ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa dhawaan waxay la wareegeen deegaanka Janaale oo muhiim u ahayd maleeshiyaadka Argagixisada ee Al-Shabaab. Ciidamada ayaana deegaankaasi maalmihii ugu dambeeyay waxay ka wadeen howlgallo lagu xaqiijinayo dhanka ammaanka. Taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka Soomaaliyeed Cabdixamiid ayaa horkacayay howlgallada ciidamadu ay ka wadaan deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose, wuxuuna taliyuhu sheegay in howlgalladaasi ay sii socon doonaan. Waxa uu kaloo intaasi ku daray in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed looga baahan yahay meesha ay ku arkaan maleeshiyaadka Argagixisada ee Al-Shabaab goobo ay ku dhuumaleysanayaan inay cagta mariyaan. Waxa uu kaloo shacabka ku nool gobolka Shabeellaha Hoose uu ka codsaday inay si dhow ula shaqeeyaan laamaha ammaanka si looga guuleysto dhagarqabayaasha Argagixisada ee Al-Shabaab. Maalmihii ugu dambeeyay ay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waxay howlgallo ay ka wadeen gobolka Shabeellaha Hoose, howlgalladaas oo lagu xaqiijinayo dhanka ammaanka.